fadhigii 11aad ee golaha deegaanka degmada Gabiley ayaa maanta lagu ansixiyay miisaaniyadda 2016 oo isla markaasina ka qabsoomay hoolka dawladda hoose degmada Gabiley halkaasi goobjoog ka hayeen 21 xildhibaan ee golaha deegaanka taasi oo ujeedadiisu ahayd horumarka la qaban doono 2016 haddii Ilaahay yiraahdo waxaana halkaasi goobjoog ka ah haweenka fulinta dawladda hoose degmada Gabiley iyo sidoo kale maayirka magaalada Gabiley Amiin Cumar Cabdi oo si wada jir ah uga hadlay kalfadhigan maanta iyo ujeedadiisa waxaana hadaladoodii kamid ahaa maanta waxaanu joognaa 31 bishii 12aad ee 2015 waxaanu halkan ku soo gunaanadana kalfadhigii 11aad ee golaha deegaanka degmada Gabiley oo aanu yeelanay 10 kulan muddana soo socday kalfadhigan oo aanu ku ansixinay miisaaniyaddii sanadka 2016 oo goluhu ugu talagalay inuu ku shaqeeyo dood iyo falanqayn kadib golaha waxa fadhiyay kalfadhiga 17 marka laga reebo shirgudoonka 15 xildhibaan miisaaniyadda waxa uu codeeyay 14 xildhibaan waxa ka aamusay hal xildhibaan shirgudoonkuna ma codeyn ciiddiidayna ma jirto waxa ansax ku noqotay miisaaniyaddii 2016 ayaan ku shaqeynay miisaaniyadda runtii waxay noo faahfaahin doonaa xogayaha wuxuu baynu miisaaniyadda runtii 2015 warbixin badan baan soo weydiinay hoos u dhac dakhli oo miisaaniyaddii hore wixii aanu qoondaynay ku yimiday waxyaalaha aanu soo kordhinay miisaaniyadda 2016 waxa kamid ah ila dakhli si dakhligu uu kordho isla markaana lacagta ku talagalay inuu sameeynay ay u soo hoyato waxa kale dawladda waxa kale mashaariicda kamid ah ka qayb qaadashada xarun ciyaaraha oo carruurtu ku ciyaaraan dhalinyaradu ku ciyaarto ku caawiyay isku timaado oo laga dhisi doono koonfurta magaalada waxa kale oo jira iftiiminta magaalada Gabiley gudaheega oo lagu talagalay in la iftiimiyo leer solarna lagu xidhi doono waxa kamid oo kale dhiib gaari yar oo loo iibin doono qorsheynta waxa kale oo jira dhismaha bridge-ka garoonka kubadda oo isagana ay lacag farbadin ku bixi doonto bridge-kaasi maaha bridge lugeed wuxuu noqon doonaa bridge ay gaadiidka iyo dadkuba ay maraan ugu talaabaan si ay magaalada ugu fito geesta galbeedka halka looga talaabo inuu sameyn doono eesar dhismaha qolka umusha emergency-ga oo dawladdu hoose xitaa barkii ay bixisay laakiin ku jiray miisaaniyaddan waqti ugu horeeyana inuu bilaabo bishii January insha Allah aan rajeynaa laga dhisi doono emergency-ga ka qayb qaadashada dooxa gabanka qalax oo dawladdu hoose qayb xaalad ka qaadan doonto qaybta ugu muhiimsan ay yeelan doonto dhismaha xafiisyada lagu kordhinayo dawladda hoose oo ilaa 7 xafiis cusub oo isaguna tagi doono garoonka kubadda cagta oo isaguna laamiya oo la sii wadi doono dariiqii agmara garoonka hore ee kubadda cagta ee Gabiley dhireynta iyo bilicda magaalada oo iyadana qayb sanadka laga qaadan doono xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Gabiley ayaa iyaguna soo dhaweeyay kalfadhigan 11aad ee lagu ansixinayay miisaaniyadda 2016 madaxyada miisaaniyadda ka talagalkii hore miisaaniyaddeena hore qaarna waxba inaga waa Nimcaan Deeg Ibrahim TV qaranka Gabiley.